iyo qabiil waa in laga ilbo afka Soomaaliga ee lagu yahay raggu waaweyn ay dhalinyarada dulmaan oo masalan aabayaashu yani wiilashooda yani ay magaranaysaa caruur ay cadaadinayaan oo ay amar siinayaan oo gabadha la muquuniyo la yiraahdo farduco iyo farha war mid qaad markii la qoray oo afka la qoray baa la isku dayay in la qoro waa la qoray wax badan baa la qoray sheekooyinka hidaha waa badan yihiin catir caana ku nuuga iyo cigaal sida anigu waa dhibaato ka mutayo idaacaddan waxaan ka sheegay waxaan dhaqaaqay uu la mid yahay araweero marka dadkii u dhalay ay qabsadeen adigu waa ka xaalay laakiin waxay yiraahdeen waxa yeeshay inta soo istaagtid fagaaraha ka sheeg hadii kale ku dacweynaa waa dad gaaraysa joogo oo hadii la ku leeyahay oo la yaqaan ku abtirsada oo caadi ah waxaan hadaan been iska dhowro 250 buug oo aan daabacnayn oo Soomaaliya qortay oo akademiyada yeelay barqa laga soo dhaqaaqay lama hayo qalku bina maanta waxa la ogaaday qofku luqadiisa markuu aad u yaqaan luqadaha kale baran kara Google Translation wuxuu luqadaada u saxaya markaad af Soomaali sax ah ku qorto oo waxaan u leeyahay annagu shacbiga iyagu inay ummiyada ka xabaxaan waxana qoraan xaq bay u leeyihiin bulsho kasta waxay wax ku tahay jiritaankeedana kaalinta weyn ka qaataa waa ku deganaanta iyo ku dadaalida horumarinta afka dhaqanka iyo diinta ummad waliba leedahay akademiya goboleedka af Soomaaliga waa urur ay ku midaysan yihiin aqoonyahanka Soomaaliyeed ururkaas oo ku hawlan horumarinta iyo ilaalinta afka Soomaaliga haddaba ururka aga iyo Afasina Academy Birmingham oo iskaashanaya ayaa waxay kulan ballaaran ku qabteen xarunta Dream Chaser Youth Club oo ku taala xaafadda Small Heath ee magaalada tan Birmingham habeeniyo dharaar hadalladan dhisnaa afkeena hooyo horumaran ku aamin maharsane waanu howlgalaa murtidan hubinaan kala hufnaa qabtirnaa u heeganaa dadweynahan hanuunina hasaawina danta wagna Ustaad Aadan Maxamed Cali wasiir hore waxbarashada dawladda Kacaanka ayaa si qoto dheer u dhiraandhiriyay dibkii loo soo maray qorid iyo dhigaalka afka hooyo iyo jaamacadda Carabta oo xilligaasi aad uga hortimid go'aanka Soomaalida ee ahaa inay Laatiin wax ku qortaan afka Laatiinka Faarax Idaaja isna kamid ah aqoonyaankii ka soo qayb galay kulanka ayaa hadallo gubaaba iyo baraarujin sida horumarinta afka loogu soo jeedi lahaa munaasabada ka yiri Idaaja oo lagu tiriyo inuu kamid yahay kaydka yarka ee u yaala Soomaalida marka laga hadlayo dhinaca aqoonta iyo waayo aragnimada durugsan ee uu leeyahay suugaanta iyo afka ayaa xiise gaar ah u sii yeelay isu imaanshaha kulanka akademiyadu waxay samaysay in la yiri nin alla ninkii Soomaaliya oo buug qoray waa laga iibsanayaa ha keeno guddi baa loo saaray guddigaas qiimeynaya buug lacag baa la siinayaa haddii uu degdeg ay tahay arrintiisu aad u fiican yahay waa loo daabacaya waxbaa laga siinayaa isaga lacag hore iyo lacag dambaba ninkii qoraayahay waxaa la rabaa buuggiisa iyo waxa uu qoro in laga guddoomo see looga guddoomaa afka ka dhowri maayo in laga gato suu u fahmo suu mid kale u qoro
ama kharashkii u soo saaro shirarkan banaanada lagu qaban jiray hadda waa laga haystay wax Soomaali loogu danaynayo lagu qaban jiray absolutely nin walba dambe u tagi jiray danaha kuwa wax xun waliba sheekadani waxay soo bandhigtay mushkiladii wadanka Soomaaliya ka jirtay 1978 waa la isku diidi karaa yani waa laakiin si fiican oo qofkii akhriya ama akhriya 50 sano kadib uu fahmayo settingka lagu sameeyay muqdisho siday ahayd khaasatan 1970 aakhirkoodii aamina muuse weheliya oo kulansatay khibrado badan oo wariyanimadu u weyn tahay ayaa si toos ah noo dhaxgeysay muqdisho iyo sheekadii maanafay oo ah magaca buugga kulankuba uu ku saabsanaa wariye aamina oo kamid ahayd dhalinyaradii ardayda ahaa oo si toos ah ugu xidhnaa sheeko taxane ahayd oo ku soo bixi jirtay wargeyskii xidigta October ayaa nala wadaagtay sida ay u shidneed sheekadu iyo ruuxii maalinkaas joornaalka laga dhamaysto suu noqonay maanafay xusuustayda aniga waxa waaye waxay ku soo bixi jirtay horta maanafay waxay u gudub waa laba qarni ayay isaga goostay qarnigii 20aad la qoray haddana waxaan ku jirnaa qarnigii 21aad waa buug waa nasiib u yeeshay waa sheeko nasiib u yeelatay in laba qarni ay isaga goosto tan yaab kale marka waxay tahay oo cajiibka maalinta maanafay la soo daabacayo iga raali ahaada maalinta wiiga ka ahayd wallaahi ma xasuusto laakiin maalinta la soo daabacayo aabahay muuse weheliya cadow oo hadda naga hooseeyo oo dhintay allah ya raxmo allah u naxariistee kama aanu soo tagi kari jirin wargeyska xidigta October waxaa yaraa wax la akhristo waxaan ahaa ardayad iskool dhigata laakiin iskuulka markaan ka soo baxo iyo aaba shaqada ka soo rawaxo wargeyskii oo guriga yaala imaan jiray waana ku xirnaan jiray maalintii dambe marka maxaa dhacay maalintii dambe waxaa dhacday in aabo hal maalin si wax ka noqdeen oo wargeyskii hortiis la dhamaystay la idlaystay markii la idlaystana uu heli kari waayay in uu helo wargeyskii xidigta October nuqulkii oo sheekada maalintii soo bixisay tii aniga ya aabana kala qabsatay ilaahay u baa ogaa wax walba igu soo sabay awada super cinema lagu diraa cinema filim hindi aan jeclaa adduunkaas soo fiirsana ma rabaan dhahay aniga sheekadii inaan akhriyo un baa jirta waxay igu qaadatay 3 maalmood oo xiriir ah inaan helo wargeyska xidigta October qof kasta oo wax qorta waxaan ku baaqayaa dadka wax ku qora baraha bulshada inay af Soomaaliga saxaan هذه ومحسنتاي آمنة طلعت الصالة ونسيسي وسيدي وشكتي Professor Rumi waa madaxa akademiya goboleedka af Soomaaliga ee aga loo soo gaabiyo laanteeda UK Rumi oo ahaa daadiyihii isku dubaridii kulanka oo inta badan aan ka maqnaanin kulamada noocan oo kale ayaa isna dhankiisa hadallo wax ku ool oo ku saabsan qisada buugga laga qoray meesha ka sheegay in waxa la rabaa tayada qoraalka af Soomaaliga kor loo qaado la iska ilaaliyo la adeegsado astaamaha sida dhibacda joogsiga waxyaalahaas oo dhan haddii kale wixii aad qoraysay waxay noqonayaan wax aan tayo lahayn dadkana waa ku daalayaan in buugga maanafay ereyga aad arkaysaan maanafay noocaas waxaa la yidhahdaa compound ayaa lagu yidhahdaa cilmiga luqadaha compound waxaa waaye laba erey waay ereyada way kala jiraan qaar keli waay qaarna lamaana waay ereygan waxaa waaye erey lamaana ah maana anfay ayaa la isku yiraahdaa marka macnihiisana waxa waa gabadhii shariifada ahayd waa fahamsantahay ereyga marka fiiriso typically waxaad arkaysaa dhaqan magaalo waxa ku soo baxay dhaqan magaalo dhaqankaas waa dhaqanka banaadiriga ayaga ayaa la baxo magacyadaas ma fahamsantahay dadka banaadiriga waxa kaloo fahmaydaa sheekada in ma fahamsantahay meesha ay ka dhacaysa ay tahay deegaanka gobolka banaadir ma fahamsantahay ayay ka dhacaydaa دكتور أفرح وحكو لي هذا غير الله سيو وقت أذكتهاي حرية الفكر وحليل قفك حرية دي سفكر كأنه سوق بيو أيو كل هذا إنه شيء ظلمي كده حجر مجتمع صومالي حل جاس وكهد لي ظلمي جاس أو إلا حاتن جرو ظلمي وين حكو دعي حل جا إلا حاتن دمرك صومالي ساس أوجد دمرك وحن لا دكتور أفرح وإذن هيلي ما حد عيوحو كهد لي تعدي قبل الصوماليين لغو سمينيو ودن كان إنجليز كأرماس وحال إلى exploitation على
waa dembi qofkii arrintaas lagu soo oogo ugu yaraan 10 sano oo xariga waa buugga ninka oo aktarka oo kale ama xidiga buugga jilayo ayaa wuxuu leeyahay markuu Talyaaniga ka yimaado wax soo barto waxaan raadinayaa gabar aan aniga la hadlin dadka kale la hadlin ina aroos waa Rio ninkaas gudoomiyaha akademiya goboleedka af Soomaaliga Dr. Maxamed Daahir Afrax waa qoraaga buugga Maanafay waa aqoon rugcada oo howlo badan soo qabtay sida isagoo kamid ah aqoon-yahano loo xulay horumarinta afafka qaaradda Afrika iyo khubaro loo diyaariyay inay dib u dhowris ku sameeyaan dastuurka Soomaaliya Dr. Afrax oo aad ugu fogaanin qisada buugga balse akhristayaasha u daayay inay falanqeeyaan sheekada ku duugan buugga Maanafay ayaa ka jawaabay su'aalo hore iyo kuwa madasha kulanka lagu weydiiyay oo ku saabsan daabacaadani cusub waxaa la yiraahdaa marumba Soomaalidu sheeko marka la yiraahdo yani sheeko yani wax taariikhda iyo sheekada inta badan ma kala saarno taariikh dhacday iyo sheeko la curiyay oo halabuura marka waxaa la yiraahdaa sheekadani ma sheeko dhacday way Soomaaliya ku dhacday adiga miyay kugu dhacday adiga ninkan maartay dadka sheekada ay ku socoto qaar ka mid ma adiga ليه سؤال كله وحويه محوها محاد كلا كلنتي أو دبا محا كاسو غاري محادب كاسو غاري محي وقتي كو قاتين تي كو قريسي مارتي وقتي كانت كو قريسي مركاسا waxaa ula carari jiray gabar ambrello la yiraahdo waafad kala degan inay ii garaacdo makiinada ii ku garaacdo maartay la halgaranaysaan inaan ka qaado markaas oo madbacada geeyo madbacada markaa inay geliyaan maartay birihii wax lagu daabici jiray si ay bari u soo baxdo haddii ay bari soo bixi weydo markaa waxaa dhacaya mushkilad weyn dadkii u safnaa iyo wixii oo maartay waxaan ku khasbanahay inay ilaa maalin walba soo baxdo aniguna ma bilaabi karo waqti ka horeeya casar gaabkii كمبيوتر ما هيستو ما قرأ مركا ما دام ساعة وخصبنا وقت يربي وقعت أو أنتي هذا بلي ور مرتي لح تضبط ملاحظ تضبط من ملاحظ كل مات arrinta aadka u xiisaha badan waxay tahay buugga Maanafayda cusub ee bandhigiisa loo fadhiyay oo ay shirkadda Loox Press u daabacday hab casri ah oo soo jiidasho leh aadna loo tafaftiray aqoon-yahano fara badan oo buugga soo akhriyay markay ka hadlayeen ka midaysnaayeen inay sheekadani wax ka barasho mudan tahay sida dadka u nool yihiin iyo dhibaatooyinka ay haweenku kala kulmaan ragga mas'uuliyiin ka socda dugsiga sare ee Afasiria Academy iyo qaar kamid ah xubnaha ugu firfircoon jaaliyada oo madasha ka hadlay ayaa waalidiinta ku baraarujiyay barashada iyo muhiimadda afka hooyo u leeyahay carruurta Soomaaliyeed ee halkan ku kortay ama ku dhalatay taasoo ay waajib ku tahay hooyo iyo aabba kasta inay xil iska saaraan isla markaana ubadkooda badbaadiyaan waa muhiim aad now more than ever in luqadda Soomaaligu ay noolaato oo ay sii noolaato ay sii jirto wadankii alxamdulillah inta lagaga hadlo kullay maxaan ku dhahday way si fiican bay dadku ugu hadlaan una nooshay laakiin runta marka la sheego halkan iyo caruurtan oo anaku dhalnay naytay waxaad moodaa inay luqaddu aad u sii liidato marka inaanu soo noolaysiino na mas'uuliyaddu inaga inaga saaran tahay waalidiintii inaga ah waxaan weeye sheekooyinkan maaragtay dadku ay u arkayaan qiyaali oo creative-ka waa warshada luqadda iyo dhaqanka weeye tan kale waxaan rabaa dadka halkan jooga oo waalidiinta qurbaha jooga dalkan markaan soo galay anuu macallin baan ahay macallin xisaabna waan ahay fiisigiisa ayaa waxaan furnay tuushin yar marka niniga horeeya wuxuu yiri waniyo tuushinka daa furisa Soomaaliya dhigi markaasaa yiri maxaa jira wuxuu yiri maalin dhaweed baa islaan farac dir laga fujiyo markaan tuushinka u dhiga xisaabtii Ingiriiska markaan u dhigan Soomaaliya waxaan ku daruuri lacag laan markaas waxay timid gabar aad u xanaaqsan wariya yaa dhig ku yiri Soomaaliga ilmayga Soomaali waro markaasaan waraan lahaa أنا وحنا لا يفايدة هذا ما لهين معه وحكى له أفكارنا هو شريتان كنا وهاي هوبت كنا حلبنا جوا صارن هلا وده هلي شكله أنا مركب برشة أي سيدا سوشيال أي آد ودحجريسها شخصي قف دي على كورة هاي برشة جود أهان حتى سياسة كمان مرة قاركود
هذا اللي كوريا معمول يعني مسق يا معمول كمان مرة وانا نولشينا iyo mustaqbalkeena waa midnimadeena haddayna afka qorin miyay saas u dhici lahayd ma dhacdeen aadan maxamed cali wasiirkii hore ilaa haddana waa noo tahay annaga sababtoo ah waxaan wax ku soo bartay markaa ahayd wasiirka markaa hadlaysa waa ilmeynayay qalbigayga sababtoo ah xasuus iyo waxbarashadii iyo noocii aan ahayn ayaa dib iigu soo maaxday waxaan dhegaysan jiray asigoo idaaja oo maaragtay sii daynayo barnaamijyo aad u qurux badan idaajaha markaan dhegaysanayo barnaamijyadaada mararka qaarkood wiil walaalkii ka dhawaajiyey oo yiri dad kale muu la hadlaa waa u ekeed sheekadaada inaad dad kale la hadlayso waa ma fahmi kar way naga weyneed hadallada iyo waxa ku hadlaysa laakiin waa soo dhaweey jirno waa jeclayn maya nalama keen laakiin waa jeclayn barnaamijyada gabadhan quruxda badan oo iga soo horjeedo ima dadaalada waxyaabaha aad soo dee jirtay galbihii waa la sugi jiray waxaan sugi jirnay inaan dhegaysano heesaha hadalladaada macaan sida rasmiga ah u hadlayso iyo meesha aad ka hadlayso waqti dheer idinku qaadan mahayo dhammaan adeeryaal mas-uuliyiinta maxay tiktoorada wasiirka maasha allah axmed faarax caliyoon wax badan telefishinka universal u jilba jabsado markuu gabayadiisu soo galaan oo runtii aan ilmeeyo afrax maasha allah maxamed afrax waa idin salaamayaa buuggana waan gadanay waxaa la yidhi odayaasha ha loo gado odayaasha siyaasad bay ku waasheen yaa la riday yaa la saara haddaan la oranayn oon maamul goboleed laga hadlayn akhrin ma hayaan buugga kasoko barnaamijkan oo guud ahaan lagu lafaguray burburka ku dhacay afka iyo manhajka waxbarashada Soomaaliya iyo sida loo bilaqaystay kaydkii iyo kutubtii ay ku taalay taariikhda Soomaaliyeed ayaa ku soo gabagaboobay farxad iyo reyn waxaadna arkaysay buugga oo gooni wax la isaga weydiinayo oo guntiga iyo gambada lagu kala gurtay markuu ruux walba gatay qaar baa shan gurtay oo giniga sterling saa u sayray ugu dambeyntii maanafay waa buug miisaan leh oo si aad u dhaxmo qoorata mawjadaha sheekadana ku macaan in maskaxda gan lagu milicsado sida darteed waa Cabdi Askar iyo Bahda Cabdi Askari tube ee magaalada Birmingham oo idin leed ordaya oo meelaha u yaalo buugga ama online iyo loox bareys ka dalbada oo koomadiinka korkiisa idin yaalo si aad u milicsataan markaad sii dhacaysaan iyo markaad soo kacdaanba afyahow dhutin maysid afyahow dhici maysid afyahow dhiman maysid